Hello, welcome my channel. I'm Surbiha Dumun. All friends, subscribe, like, and comment. Thank you very much. waxaan rabaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed samaha iyo dawladna jecel oo walaalkiin Ukaash Baarqab afayeenka canshuur bixiyaha dulman oo idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanta islaamka idinku salaamaya talamaad waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo qodobka ugu muhiimsan oo ah dadkii canshuurta bixinaaye ee aan adeegii service la siinayn ee wadooyinka laga xirtay rabaa maanta inaan dul istaagno rajadii Cumar Finish xagee ku dambeysaan ka hadleynaa intaas halkaas qodobisaan ka hadleynaa marka soo dhawaada shargare laagna saara kumidsana ka baxsha waxaan rabnaa haddaan nahay canshuur bixiyaha dulman ma rabno annaga wax la yiraahdo dagaal ma rabno waxaan ku ridaynaa dawladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan ku ridaynaa muxuu ahay maarkino banaanbax la ku ridaynaa banaanbixi waa madasha xisbiyada ayaa waxaan yiraahdeen maaragtay dib u dhiga raalaada idinka fogaaday madasha xisbiyada ayaa yiraahdeen dib u dhiga xoogaa maaragtay codsi oo ka yimid gudoomiyaha madasha Shariif Sheekh Axmed ayaan dib ugu dhignay waxaan rabnaa inaan idinla wadaagno marka halka qodob ugu muhiimsan oo ka hadlayno oo ah gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Cumar Maxamed Cumar Finish wuxuu gacanta ka taagay South Africa xalay wuxuu yiri aniga madaxdaydu waa diiday waxayna tiri inta la dhima lahay hala dhibtoodo waa waxyaab leh inta la dhima lahay hala dhibtoodo okay geerida ma cili karaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maya geeri ma cili karo waxaan soo xasuustaba kirib uu dhahaayay oo raba mar dhow inaan idin soo geliyo annaga islaam waan nahay laakiin islaam kuma dhaqano inna lillahi islaam hadoon ku dhaqmo qofka islaam ma ah waa ina salaad waa soonnaa sakada waa bixinaa xijka waa aadnaa hay ashhaadkan waa qirana intaas waa islaamnimada dhaqanka islaamnimadu waa shanta tiir waaye marka hadduu Maxamed Cabdullaahi Farmaajo asiga annaga Soomaali ahaan wuxuu yiri dhaqanka gaaladan leenahay islaam waana laakiin islaam kuma dhaqano yiri bal fiir kuma dhaqano waa ka baxay haddaan isaa ku dhaqmo islaam mihid marka Cumar wuxuu yiri dhimashada